hay-adda culimmada Soomaaliyeed ee ku aadan xafladaha fisqiga ah. hay-adda culimmada Soomaaliyeed waxaa walaac ku haya wararka isu soo taraya ee ku saabsan xafladaha fisqiga ah oo ay abaabulayaan dad ku aftirsanaya fanka una badan qurbo joogta laguna soo bandhigayo macsi ilaahay laguna fasaadinayo anshaxa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada. marka hay-adda culimmada Soomaaliyeed ayadoo gudanaysa xilka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda Soomaaliyeed waxay soo saarayaan bayaanka soo socda. kow, hay-adda culimmadu waxay caddaynaysaa in kuwa waxaas wada oo abaabulaya ay halis ku yihiin diinta iyo dalka Soomaaliyeed, fidinayaan fisqi iyo fuxsh, ummadda iyo naftoodana u horseedayaan halaag adduun iyo cadaab aakhiro. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. kuwa jecel in ummadda muslimka dhexdeeda ay ku faafto faaxishada iyo foolxumadu cadaab ayay leeyihiin adduun iyo aakhiraba. nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin. ummadaydu way badqabaysaa wayna nabadgelaysaa ilaa kuwa macsida la jahra ma ahane. labo, waxaan u soo jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in aysan qayb ka noqon dagaalkaas ku wajahan ilaahay iyo diintiisa subxaanahu wa tacaala oo ay dadkaasi wadaan, lacagtoodana aysan ku gadanin carada ilaahay iyo cadaabkiisa. saddex, waxaan u soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta dowladda in aysan ummadda baylah uga dhigin dadka ka mushtarahaya anshaxa ummadooda una adeegahaya ajandaha shisheeye. wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uul can racyati. dhammaantiin mas-uul baa tihiin, qof kastana waxaa la raacsaday waa la weydiinayaa qiyaamaha. waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiinta in aan guul lagu gaaraynin fisqi ay wadaan wiilal dhowr leh iyo gabdho jirkooda soo bandhigahaya. nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii xaraamin. ilaahay caafimaadkiina ma dhexgelinin wax idinka xaaraan ah. ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa kuwa xumidaas wada inay ilaahay ka baqaan subxaanahu wa tacaala, diintooda iyo dadkoodana u turaan, irsaaqadooduna waddo xalaal ah ku raadsadaan. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. guddiga fulinta hay-adda culimmada Soomaaliyeed, Muqdisho, Soomaaliya.